ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka tacsiyay qarixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo galaaftay nolosha muwaadiniin Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 40 qof. ra'iisul wasaare Gaas oo booqasho ku jooga caasimadda Zambia ee Lusaka mar uu waraysi gaar ah siinayay TV-ga Universal xafiiskiisa magaalada Lusaka ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay inuu maqlo qarax noocan oo kale ah oo lagu bartilmaansanayo shacabka Soomaaliyeed ee waxba galabsan isagoona ku tilmaamay weerarkan mid waxashnimo ah. Bismillahir Rahmanir Rahim. waxaan halkaan rabaa inaan wax uga diro dadkii masaakiinta ah ee Soomaaliyeed sida waxashnimada ay u laayeen nimankaas sharwadayaasha ay shabaab dadkaas heladoodii iyo qaraabadoodii waxaan leeyahay ilaahay ama waxaan xariisto inta dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha siiyo caafimaad degdeg oo sariic ah aad baan uga xumahay in ay dadka masaakiinta ah ee ay beegsadaan طبعا وحوي عادة شباب وهي مركي أي دميان كسونيدا شعبك مركي أي أودي وياه إن أي فرنت دجال كأي يعني كيقول يستان إذا ماذا إن دم وصل لابتان كشعب قاو أي لايان عدودي بيهايد وحنا رجينا يوم الصومال الميرة شوكتبه إن أي مير وصل وده جستان عدو قارنتي دبتوين كوه يوم الصومالية وديday dowladnimo وديday horumar وديday nabadgelyo in aan meel u soo wada jeesano in aan ku midowno in aan midnimo yeelano in aan muwaafaqo yeelano si markaasi horumarkii iyo dowladnimadii iyo dib u noolaynta qaranada Soomaaliyeed ay loo soo dedejiyo marka aad baan uga xumahay waan ka taxsiideynaya dhibta ummadda Soomaaliyeed soo gaartay. Master Gaas ayaa sidoo kale ugu baaqay dawladda Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda ammaanka inay ilaaliyaan amniga shacabka Soomaaliyeed si loo helo amni iyo xasilooni waarta. waxaan ku buuranayaa runtii ciidamada amniga iyo dawladduba runtii aad la isugu taxallujiyo in yani la difaaco lana sugo nabadgelyada dadka shacbiga ah gaar ahaan magaalada Muqdisho marka mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay ha naxariisto inta dhimatay inta kalena عافية دقدقة. سعيد مصطفى Universal TV Lusaka.